Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub waa aniga Usaama Mukhtaar maanta waxaan qaadan doonaa markaa muuqaalka aad wada sugaysiin haddii aad iga socotay dhanka YouTube-ka waad fahmaysaa waxaan ka hadlayo muuqaalka aan ku hadlayno waxaa waaye marka wuxuu ku saabsan yahay update cusub ay kusoo kordhiyeen shirkadda Facebook qoraal aan soo dhigay YouTube-ka ayaan ka hadlaya markaa update-kaas cusub iyo inaan kasoo sameeyo muuqaal Facebook ayaa kaashadeen ama dad u wacan khubro oo luqad Soomaaliya taf ku ah ama dad Soomaali oo luqad si fiican u yaqaana marka ay ka howlgeliyeen kuwaasoo marka u turjumay meelo badan luqadda Soomaaliya suurtageliyena marka in lagu isticmaalo waxaa laga yaabaa marka Facebook soo gashid inuu ku weydiiyo qormo ah inaad ku isticmaali kartid luqadda Soomaaliya haddii aad u ogolaatid sidaas ay ku isticmaali kartaa laakiin haddii aad ka gudubtay marka muuqaalkan ayaa ku hadlayaa qaabka aad ugu isticmaali lahayd luqadaada Facebooka haddaba asal eegna muuqaalka haddaba si aad ugu isticmaashid Facebooka luqadda Soomaaliga waxaad soo galaysaa markaa Facebooka markaad soo gashid waxaad imaanaysaa qaybta ay ku qoran tahay qaybta profile-ka ayaad imaanaysaa ee geeska kadibna waxaad ka dooranaysaa markaa adiga sidan ayay ku yeesaan filayo hoos ayaad u wadaysaa waxaad imaanaysaa meeshan settings and privacy ayaa imaanaysaa calaamadan ayaa markaa dhagsiinaysaa calaamada dhag markaa siisid waxaad kasii dooranaysaa language markaad ku dhufatid halkan waxay kuu doorantaa markaa luqadda Englishka marka adiga waxaa ka dhiganaysaa Soomaaliya hoos u wad ilaa aad ka tagaysay meel ay ku qoran tahay Soomaali haddaba waa ujeedaan meeshan waxa ku qoran Soomaaliya marka inta ayaan ka dooranayaa kadibna qoraalkaas ay kuusoo qoraya waqti yar sug saad ujeedaan marka wixii dhammaan ayaa isbedelay oo af Soomaali ay isku bedeleen hadda pages oo kale bogag ayuu dhahay dashboard xirfadeed akhbaaraha kooxo waxaan dhan marka isku bedeleen af Soomaali sidoo kale macluumaadka bulshada habeenada iyo asturnaanta waxyaabahan ayuu soo qor markaa qaab oo af Soomaali ahaan loo dhigayo sidaas ay u isticmaali kartaa midda koowaad oo ah inaad ku isticmaashid af Soomaali gabi ahaanba Facebookkaaga sidoo kale waxaa jira markaa qaab kale oo haddii uu qoraalkan yacni postigan haddii uu af English ku qoran yahay uu kugu bedeli karo markaa af Soomaaligaaga marka af Soomaali si aad ugu bedelatid sidoo kale postiga waxaad soo galaysaa setting qaybtii hadda ayaa imaanaysaa setting markaa ku dhufatid waxaad tagaysaa markaa meeshan ugu horeyso ay ku qoran tahay habeennada oo dhigmato settings caadiga ah kadibna waxaad ka tagaysaa meesha ay u qoran tahay turjumada postiyada qaybtaas ayaad ku dhufsanaysaa kadibna waxaad imaanaysaa meesha ay u qoran tahay af Soomaali ama luqadda aad jeceshahay in postiyada lagu turjumo yacni postiga haddii uu af English ku qoran yahay ama luqadaha kale waxaa kusoo turjumanaysaa markaa luqadaada Soomaaliga marka qaybtaas ayay ku dhufanaysaa kadibna waxaad hoos u wadaysaa markaa hadda waxaa ii dooran aniga af Soomaali ahaan ay ugu dooran oo horey aan u isticmaalay marka waxaa laga yaabaa inay ku dooran tahay English marka hoos u wad ilaa aad ka tagaysay haddana meel ay ku qoran tahay af Soomaali ayaad raadinaysaa oo hadda saad ujeedaan aniga waxaa ii saaran tig horey ayaan u isticmaalaa marka taas ay caddaynaysa inaan hore u isticmaalay af Soomaali markaa kasoo dooratid oo dhagaasiisatid ama saas hal mar u taawatid kadibna kor ayaa usoo wadaysaa waxaa imaanaysaa markaa meeshan ayaa imaanaysaa ay ku qoran tahay kaydi meeshaas ayaad ku dhufanaysaa kadibna yacni af Englishtii kugu qoran tahay save ah kugu qoran markaa saved ayaa soo dhaanaysaa kadibna waad ka soo laabanaysaa marka si dhammaystiran hadda waxaa ugu isticmaalaysaa Facebookkaaga luqadda Soomaaliya oo meel walba aad tagtid waxaad ku isticmaalaysaa luqadaada caadiga ahayd marka sidaas waxyaabo badan inay kusoo kordhiyaan oo sidii yacni caadiga ahayd oo luqadda Soomaaliya ugu shaqaynaysay turjumadii waxyaabo badan ayaa ka qaldan marka adiga ku qaado waxa inay soo bedelaan laga yaabaa laakiin haddii aad Soomaali wax ku fahmaysid Facebooka marka ciladaha kaga soo baxay waxyaabahaas oo dhan qaab af Soomaali ayaa u helaysaa marka haddaba muuqaalka haddaad ka heshay waxaan kaa codsan lahaa inaad like noo saartid sidoo kale haddii aad ku cusubtahay channelkeena inaad subscribe noo saar mahadsanidin